qof wax garta tahay way haddaadan garanna haddii wanka weyjaar la biray indhixiis orada ma arkaan dad gowrac sugaya waa ku imaan doona halkaada ku sug taas halkaas ii joogay dawlad goboleedyada nimanka ahoo shanta ah waxaan leenahay ummadda Soomaaliya masiirkeeda maanta adika la idinka rabaa farmaajo waa u jeedin meesha uu taagan yahay ummad Soomaaliyeed masiirkeeda kala hadlayna hala fariisanina doorashada ka hadlina dalkan inaad samatay bixisiin adankay dusha idinka saarantahay wax mas'uuliyad Soomaaliyeed saarantahay maanta idinka jira badbaadiya dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyo diintooda iyo sharaftooda iyo cisigooda iyo karaamahooda intaas waxaan u sheedinayaa dawlad goboleedyada Soomaaliyeed oo shanta si gaar ah waxaan ula hadlaynaa ayagana beesha caalamka waxaan ka xunnahay ninka saas u fikira oo saaka dadkii doortay asagoo xilkiisa dhamaaday xabad la dhex taagan inay dhahaan waa aqoonsanahay waana la shaqeeynaa taas wax laga xumaada ah wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya hadda joogahay dambi ummadda Soomaaliyeed ka galeen waxaan uga digaynaa inaysan ku sii wadin taageerada ay taageerayaan iyo la shaqeynta ay la shaqeynayaan labadaas haday sii wadaan wallaahi dambiga asagoo u galay la galaya ummadda Soomaaliyeed taariikhdeeda baal madoobay ka gali doonaan wakiilada hadda Soomaaliya joogahay waxaan kaloon rabnaa inaan ayadana si cad wax ugu sheegno dawladaha saaxiibada ah oo Soomaaliya sida gaarka u dacmiya oo hubka siiya oo dhaqaalaha siiya bal hadii ogaada waxaad Soomaaliya aad ku taakuleyseen oo ka xusaya waliba dawladda Turkiga oo walaalaheena oo sharafta leh oo ummadda Soomaaliya ayadoo god ku jirta ka soo saartay saaka wixii ay Soomaaliya u dhiibtay oo hubahay oo ciidanahay oo risaasahay in dadkii Soomaaliyeed badbaadisa lagu laynaan Turkiga u sheegayna waa inay ka digtoonaadaan ninkaas bahalnimada ka shaqeynaayo ummadda Soomaaliyeed halkaas la dhex taagan xabadda oo sharci ilaalihiin oo majnuunka oo handicapka oo qalbiga ka jiran waa inay la shaqeey dawladda Turkiga leenahay qadar sidoo kaleeto haddaad Soomaali rabtiina Soomaali badbaadiyo dhibka ka daayay qadar iyo fahad taageeradooda ka daayay haddaad Soomaaliya danka leedin dawladda qadaran leenahay haddaad ayaga rabtiina la dhinta taariikhda ayaga way badalka Soomaaliya ka galeysaan waa nimanka la yiraahdo qadar dawladda qadaran leenahay haddaad fahad iyo farmaajo kaliya rabtiin taariikhda ay Soomaaliya ka gali doonaan oo baalka madow ku qoranaad gali doontiin haddaad Soomaaliya danka leedihiin ka leexda nimankaas bahala waaye waa niman dogma ah waa niman dalka loo soo diray waa niman warlords ah wax ay ku dhaqmaayaan wali lama arkin ayagoo kaleeto waxaana sugay maxkamadda adduunka oo dambiyada qaada inaan la sugaynaa qofka noogu dambeeyo Soomaaliya waa inaan la tiigsanaa ayagana saasaan leeyahay aad u bilaa tawfiiq